Chief Caaqil Kayse Ismaaciil Muuse oo ka mid noqon doona madax dhaqameedka gobolka Sanaag isla markaana ka soo jeeda mid ka mid ah saldanadaha dhaqanka ee gobolka Sanaag ayaa maanta lagu caleema saaray magaalada Ceerigaabo. Madashii loo asteeyay caleema saarka caaqilkan oo ka qabsoontay duleedka galbeed ee magaalada Ceerigaabo ayaa waxa ka soo qayb galay madax dhaqameedka beelaha gobolka Sanaag iyo marti sharaf aad u tiro badan. waxaana munaasabadaasi ka hadlay xubno isugu jiray salaadiin boqorro cuqaal guurti iyo waxgarad iyo aqoon-yahano kale kuwaas oo dhammaantoodba soo dhaweeyay isla markaana sheegay in iyaga iyo bulshada ay wakiilka ka yihiin ba ay la shaqeynayaan Chief Caaqil Kayse Ismaaciil Muuse. Kayse Ismaaciil Muuse ayaa caleema saarkiisii ayaa maanta halkan lagu caleema saaraya. Chief Caaqilka waanu u ducaynaynaa ilaahay xilka loo gartay ee ilaahay u gartay ee ummaduna raacsan tahay in ilaahay ku asturo. waxaynu halkan u fadhinaa oo aynu maanta isugu soo baxnay inaynu muujinno taageerada aynu hayno Chief Caaqil Kayse Ismaaciil Muuse oo maanta loo doortay Chief Local Authority Ceerigaabo iyo Chief Caaqilka Cabdulla Xaamud iyo Chief Caaqilka Habar Yuunus Bari nin walba kiyaad jeceshahay dhaho halkii Ismaaciil Muuse iyo Jaamac Ismaaciil Muuse ay isaga dambeeyeen ayaynu u caleema saaraynaa Kayse Ismaaciil Muuse sidaas oo maaha dhammaanteenba ninkan ilaahay baa doortay annuna waa akiidnay waa qaadan waa ku caana shubaynaa waa la shaqaynaynaa madax wuxuu ku soo biiray dhaqanka golaha dhaqanka ma xiisaanu nahay ma sii dayn doono waa Chief Caaqil Kayse aynu ka wada dharagsannahay waa jabadkeennii hore waa shiikheennii dambe waa maanta oo uu jiifkeennii yahay baashan madax dhaqameedka la yidhaahdo saddex arrimood baa keena xabaali way keentaa xiliyana way keenaan xil iyo xaasidna way keenaan tan maanta aynu isugu nimid xabaal baa keentay soo jireen ahayd oo taxana ahayd oo afar soo martay maantana sidaas aynu halkan isugu nimid ilaahay waxaan ka baryayaa inay noqoto mid taranta oo tanaada oo loo aaya oo ina midaysa oo ina mataanaysa oo aan ina kala qoloqolayn oo aan ina kala guriyeyn oo mid inaga dhigta uliya diirkeeda. Chief Caaqil Kayse Ismaaciil Muuse caleema saarkiisa ayaanu maanta halka ugu nimid insha Allah ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay xilka maanta la saarayo in ilaahay u fududeeyo baan ilaahay uga baryaynaa waa la shaqeynaa ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay u safiro oo hawl yareeyo hawsha loo doortay waxaanu leenahay caaqil xilka lagu gartay annana waa ku garanay qabo ilaahayna waa ku fududeynaya waxil ilaahay ku gartay waana kula shaqeynaynaa haddii alla yari كل واحد نوبه هاي نقول شيخ هو دعينا ناس نوين ودعينا وتوجوين وانتها شيخنا واحد نقول دعينا إلى هاي حلكها هلا قبته وكل شقينا وكل شقينا إلى هنا وامرك وحمد رشنا وحين ناس يقيمي إن نور شقينا صومين وبلا قادم كل جين إلى هنا وين مقلية وقبل كرخار بانكاي waxaan uga yimi inaan ka qayb galo caleema saarka Kayse Ismaaciil waxaan ogahay inuu yahay nin taariikhiya oo dhaqanka taariikh ku leh waxaan halka ku soo dhaweynaa Kayse Ismaaciil Muuse waxaan ku hambalyeeyaa Chief Caaqilnimada soo soco in ilaahay la garab galo oo ku gargaaro waxaan ku rajaynayaa عقاشين وقاميو توسيو anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca Chief Caaqilkan ka wakiilahay Cabdirasaaq Axmed Maxamed iyo meesha afkeeda baan anigoo ku hadlaya waxaan ku soo dhaweynayaa oo lagu soo faray Kayse Chief Caaqil Kayse Ismaaciil Muuse in halkan ducadii iyo taageeradii aan uga muujino dardaarankiigu waxa weeye uqaasha gobolka sidii isugu keeni lahaa ilaahay ha ku garab yeelo waxaan u taaganahay caanatunkii xafladii Kayse Ismaaciil Muuse oo loo caleema saarayo Chief Caaqil ugu dambeyntiina Chief Caaqilka cusub ee la caleema saaray Chief Caaqil Kayse Chief Caaqil Ismaaciil Muuse oo munaasabadaasi ka hadlay halkaasi ka soo jeediyay hadallo isugu jiray duco dardaaran iyo mahadnaq dadka ka soo qayb galay salaadiinta
ugaasha shiifafka dhalinyarada munaasabadaas iyo bogaadintii waan idinka aqbalay xilkii maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala anigana waxaan ilaahay idin weydiisanayaa walaalayaal inuu ilaahay ii fudaydiyo mas-uuliyadda intaas leeg khayr badan baa muuqda khayrkaa badan muuqdana ilaahay subxaanahu wa tacaala albaabo khayr ilaahay noo furo sidii aad arkayseenna walaalayaal waxaan qaadanaynaa kitaabkii ilaahay gobolkeennaas waxaanu qaadanaynaa kitaabkii ilaahay baan qaadanin ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu ilaahay noo fudaydiyo waxaan kale idiin soo jeedinayaa inaan mashaakilka faraha badan iyo balaayinka faraha badan xaaladda keliyaataynu kaga bixi karnaa ay isaga tahay sidaa darteed horena waxaanu haysanay in waxbaan ka qaadanay inaan dhammaystiranno ilaahay fadligiisa waxaan wada qaadanaynaa maanta kow ka bilaabaynaa sakada oo barnaamij hore aan ka lahayn annaguna inaan quweyno dadweynaha kale gobolkuna ay nala qaataan talabaadna waxa weeye walaalayaal mashaakilka weyn iyo arrinta weynu ku habsatay ay maguhu leeyihiin iyadana waxaan soo jeedinaynaa oo go'aan ah reer waliba inuu buuggiisa caddeeyo iska bixiyo intaa marka ka dambaysana barnaamij islaamika aan ku kaxaynayno walaalayaal xoojinaynaa midnimada iyo walaaltinimada ummadda gobolkan ku nool iyo waddankeenna waa ilaahay fadligiisa oo aan ilaahay la kaashanayno cuqaasha oo dhanna waxaan leenahay xaygaanu maanta qabsannay inaan wada gejinay iyo dadweynaheennaba kulankaa weyna ilaahay subxana wa tacaala ni soo taagay iyo noloshaasoo maanta kow ka ah iftiinna u ah ummadda islaamka oo dhan ويونس شيخ أحمد Universal TV Ceerigaabo